السلام عليكم أولادك محمد مارة سودو هذا صاحب هذا كحران بوجي مارة عنكدو بيا مقال يرو فرين أو كوبان أو عن إدينسو قد بني جارهان متوعدي عن صاحب هذا كواهين ولا الله كواهين درسك كواهين قويسك إسامينات درهرك إسنان تجريه صاحب هذا كو سوغان كونفورت الصومالية جارهان مقالة مقدشو waxaa mayaamahan ka maqnaa internetka hadda muddo dhowr iyo 30 saacadood ah ayuu hawada maartay internet ka maqnaa runtii dadku internetka wuxuu ahaa amal iyo waxay qabtaan inta badan saaxiibada qaar aan ogahay shaqo la'aan iyo waxa ku dhacday iyo maaragtay waxay qabtaan ay garan waayeen xil ay noqotay in la raadsado game la ciyaaro ama film ama waxyaabo kale laakiin fariinteenu taas ma qosayso waxa rabaa inaan idin soo gudbiyo sidoo u saameyn kara lamaanayaasha in internetku uu hawada ka maqan yahay gaar ahaan lamaanayaasha kala jooga dalka dal oo aan dhowr iyo 30 saacadood oo internetku hawada ka maqnaa aan ismaqalin runtii lamaanahaaga ama qofka aad jeceshahay ama qofka aad guriga iyo qoysku iyo caruurtu idinka dhaxayso waa qof markasta naftaadu tabayso kulankeeda aragtideeda la hadalkiisa waxa soo dhan dadka ugu saameynta badan oo uu saameeyay internetkuna iyaga ka ah marka laga reebo dadka quuto daruurigooda ku xirnaa oo shaqadoodu ay ku xirneed maalin kasta inay maaragtay ku shaqeeyaan internetka dabcan gurigu wuxuu ku dhisan yahay in la iska warhayo in la is ogaado in la wada jiro in is-aaminaada iyo kalsoonida kor loo qaado laakiin lamaanayaal badan dhowr iyo 30 saacadood way kala go'doonsanaayeen mid kastana hilow iyo jacayl iyo xiise iyo dareen ayuu qolkiisa la fadhiyay oo ama gurigiisa la fadhiyay isagoo oo tabaya codkii ama aragtidii ama hadalkii ama sheekadii ama kaftankii qofka kale aniga kamida dadka saas ay ku dhacday oo tabaayay hilowgaas iyo jacaylkaas iyo xiisahaas oo dhowr iyo 30 saacadood uu ka xiray lamaanihiisii marka dad badan oo ila midana way joogaan oo maaragtay saas oo kale ay fariintan ay khusayso oo ku dhacday laakiin marxaladan oo kale markay timaado badana guriyaha waxa ku yimaada ama marxalad duruufeed markay timaado guriyaha waxa ku yimaada buuq ama maaragtay isafgaran waa u dhaxeeya lamaanayaasha waxaan kula dardaarmayaa lamaanaha markasta duruuf kasta oo ku timaada inay u yeeshaan dulqaadkeeda duruuf kasta oo ku timaada inay sameeyaan samirkooda saasaana lagu gaaraa nolosha quruxda badan saasa lagu gaaraa nolosha wanaagsan saasa lagu gaaraa nolosha xiisaha leh saasa lagu gaaraa nolosha ay ka soo baxaan ama guriga ay ka soo baxayaan ubadka quruxda badan ubadka wanaagsan ubadka xushmada badan ubadka bulshada dhexdiisa wanaagii farxadda ku wada joogaya lamaanaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku dhiirinayaa oo jecelahay inaan ku dhiirigeliyo markasta in ay ilaaliyaan is-aaminaada in ay ilaaliyaan kalsoonida in duruuf kasta oo timaada ay si wadajir ah u wajahaan maaha lamaanahaaga haddaad weydo maalin ama 2 maalmood inuu ka xiisa dhacay maaha inuu ku nacay maaha inuu maaragtay qof kale uu xiriir ama uu la sameeyay cilaaqaad uu la sameystay laakiin duruufaad timi duruuftuna waxay keentaa lamaanu inay isu soo dhawaadaan haddii xiriirkaas uu yahay mid dhaba oo wanaagsan oo wadajira oo si daacad u socda laakiin haddii waxyaabo kale ay ku dhex jiraan xiriirkaas ama dana la isku doortay ama ujeedooyin kale la isku doortay dabcan way saameynaysaa oo waxa waayaan waa lagu kala irdhoobaya arinta iyada ah lamaanayaasha Soomaaliyeed meel kasta joogan ha guuleystaan waxaan idin kula dardaarmayaa inaad kalsoonidiina aad maaragtay dhowrtaan waxaa jira dad badan oo guriyuhu ay ka burbureen iyagoo aan hayn taladii markaas ay ku istaajin lahaayeen ama ay ku badbaadsan lahaayeen gurigaas saadaradeed duruuf kasto timaada waxaan idin kula dardaarmayaa lamaanaha Soomaaliyeed inay kaga gudbaan dulqaad iyo wadajir waxa in badan ila soo hadla oo page-kayga Facebook oo hadda muuqaalkan ka daawanaysid igala soo hadla lamaanayaal badan oo qaarkood hore gurigooda uga dumay oo kala tagay iyaga oo leh
hadda wixii oo dhan gacanteedii aan ku burburiyey maxaan sameeyaa si u soo ceshadaa maxaan maaragtay si aan dib ugu helo in qoyskaas ama gurigaas uu ii dhisnaado seen maaragtay maxaan ku dhaqmaa ama maxaan sameeyaa dabcan waa la kala xanaaqi karaa muran waa imaan karaa khilaaf yar waa imaan karaa laakiin ha noqdo kaasi mid wax dhisa iyo noqon mid wax dumiya sababta idin leeyahay ha noqdo mid wax dhisa waxa weeyaan haddii aad wax qoonsato ama wax yimaadaan ma aha inaad go-aan hore ka qaadato dabcan waxaa la yidhaahdaa haddaan iga khaldanin qofku markuu faraxsan yahayna go-aan ha qaadan markaad faraxsan tahayna ballan ha qaadin markaad caraysan tahayna go-aan ha qaadan labaduba waxay keenaan waa xilli maskaxdaada qalbigaaga jirkaaga waxa dhan ay mashquulsan yihiin confiuse ku furan yihiin dhiigaagu si xawliya u shaqaynayo saa daraaddeed go-aanka aad qaadato wuxuunbuu kaa burburinayaa mooyaane waxba ku dhisi maayo saaxiibadii uu internetka ka maqnaa dhowr iyo 30 saacadood waxaan leeyahay hadda waxaa ifafaala muuqata in wax laydin furay oo aniguba hadda muuqaalkan idinkula soo wadaagaya page-kayga oo aad ka daawanaysaan saa daraaddeed bal hilowgii iyo xiisihii iyo wixii idinkala dhex yaalay waxa weeyaan codadkiina iyo isku daweeya iyo aragtidiina waa mahadsantihiin dhammaanaystu mareed ha guulaystaan iskaabuladuna ha guursato waa mahadsantihiin salaamu calaykum haddaa ku cusub tihiin page-ka maarina kusoo biir saaxiibada ku taxan muuqaalkana la sii wadaag saaxiibada kale qaybta commentiga haddii aad jeceshahay inaad cid lamaanayaashiisu ka maqan yihiin ama adiga laftaada lagaa maqan yahayna kula wadaag salaamu calaykum